asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo halkan waxaan soo gelinaa muuqaallo ku saabsan filimka habboon iyo arrimo kaleetoo la xiriira fadlan hadday tahay markii ugu horreysay halkan soo booqatay ha ilaawi inaad barta cas taabatid subscribe-ta maanta muuqaalkeena waxaynu kaga hadlaynaa mowduucuna uu yahay maxaa ismahaan ku diray habboon maxaa daba dhigay maxaa ay mar walba u doonaysaa inay dhibaato geliso amaba ay mar walba u danaynaysaa inay ka shaqayso murugta habboon sida aynu ognahayba ismahaan waxa ay mar walba ka howlan tahay in ay ka xanaajiso amaba ay dhibaato u geysato habboon arrintan haddaba maxaa loo sababeyn karaa maxaa keeni karaa marka hore waxa ay amaba ay aaminsan tahay habboon in ay tahay ilmo ama ay yihiin ilmo habreed amaba ay yihiin ilmo eedo ismahaan waxa ay tahay qofkii ugu horreeyay ee ogaaday xiriirka ka dhexeeya jamaal iyo habboon arrintaasi ma aysan soo dhaweynin waxaana ay bilowday in ay durbadiiba u sheegto hooyadeed jacaylka habboon iyo jamaal ka dhexeeya waxa uu galay xaalad murugsan waxaana la aaminsan yahay in arrintaasi ay sababteeda leedahay aktaradda aan idhaahdee aktaradda ismahaan waxa ay u muuqataa inay tahay amaba ay tahay jilaayadda filimka ku jiraysa rufiyaanad amaba laadarada ugu weyn ee filimka haddaba jacaylku ma ka baxsan doonaa maxaase ku diray marka hore waxaa la aaminsan yahay in arrinta ugu weyn ee keentay in ismahaan ay habboon dhacdo ay tahay marka hore inay kaga horeyso waxbarashada jaamacadda ay isla dhigtaan habboon aaday ugu wanaagsan tahay halka ismahaan la aaminsan yahay inay ilaa 4 maado dhacday taasi waxa ay tahay in ay marka hore ka masiirsan tahay sidoo kaleeto arrinta labaad ay aadka uga murugaysan tahay waxa ay tahay xiriir walaaltinimo oo xilfaaltana uu ka dhexeeya labadooda maadaama inta badan la aaminsan yahay in ay ka shaqo wanaagsan tahay habboon ismahaan arrinta saddexaad ee ugu weyna waa in ay ismahaan tahay qof xun islamarkaasina aan soo dhaweynin dadka ay qaraabada yihiin sidaas darteedna ay u riixayso amaba ay u xumaynayso habboon maadaama habboon aysan la soo korin waalidkeeda islamarkaasina ay guriga la degan tahay ismahaan sidaas darteedna ismahaan isku dayeyso inay iska dhigto boqorada guriga amaba ay muujiso inay iyadu ka sokayso amaba ay uga sokayso guriga islamarkaasina ay isla hayso guriga sidaas darteed waxa ay ismahaan isku dayeysaa in ay tusto habboon inay iyadu guriga leedahay sidaas darteedna ay tahay inay ixtiraamto aysanna macquul ahayn inay marnaba aqbasho in habboon ay uga faran u dhuubnaato arrimaha qoyska amaba ay ka saramarto saaxiibayaal halkan subscribe saara si idiin soo gaaraan muuqaalada aan maalinaha halka usoo gelino kuwaasi oo xiiso badan lana xiriiraa intooda badan arrimaha filimka habboon mahadsanid